Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal kale. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa habka ugu fudud ee Google account-gaada ama Gmail-kaada aad ku saaran karto sawir. Haddaba ma saaran kartaa sawir Gmail-kaada ama Google account-gaada? Jawaabtaydu waa haa. Haddaba sideed u saaran kartaa? Fadlan haddii aad channel-ka cusub tahay subscribe ii saar, gambaleelkana furo si ay kusoo gaaraan muuqaalada dhiiliga halkan kusoo gudbino. Marka hore waxaad ka galaysaa browser-ka ama halka aad doonto, balse anaga hadda waxaan galaynaa Gmail-ka ayaan ka gali doonaa. Gmail-ka ayaan ka gali doonaa. Markaas sidan Gmail-ka ugu dhufato kabacdi waxaad ka dooranaysaa qaybta sare ee kaaga muuqdo Gmail-kaagii ama Google account-gaada ayaad ku dhufanaysaa. Markii aad ku dhufato kabacdi hadda sida idiin muuqato aniga midkan sawir iima saarno, kaliya waxa ii saaran xarafka igugu qoran oo ka bilowdo T, xarafka T ah ayaa ii saaran. Waxaan jeclaan lahaa inaan sawir saarto. Marka hore isaga ayaad ku dhufan doontaa Gmail-kaaga, kabacdi waxaad kasii dooran doontaa halkan ay ku qoran tahay manage your Google account ayaad ku dhufanaysaa. Halkan ay ku qoran tahay manage your Google account ayaad ku dhufan doontaa. Kabacdi marka aad ku dhufato halka sidan ayuu kuu soo saari doonaa. Markuu sidan kuu soo saaro kabacdi waxaad kasii dooran doontaa halkan ay ku qoran tahay personal info ayaad kasii dooran doontaa. Marka halka kasii doorto kabacdi waxaa kasii dooran haddaba sida halkan in kaga muuqato waxaa lagu dhahay your profile info or Google services personal info option minaamin ay ku hayaan halkan, balse waxaad ka dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay photo ayaad ka dooranaysaa, aad ku dhufanaysaa. Kabacdi wuxuu ku dhahayaa profile photo, your profile photo is visible to everyone across the world, balse halkan waxaad dhamma taabanaysaa halkan ayaad ku dhufan doontaa ay ku qoran tahay set a profile photo ayaad ku dhufanaysaa. Kabacdi waxaad kasii choose garaysan doontaa halkan ay ku qoran tahay choose a photo ayaad ka choose garaysan doontaa. Halkan ay ku qoran tahay take a photo haddii aad ku dhufato wuxuu ku geyn doonaa kaamiradaada ama telephone kaamiradiisa ay ku geyn doonaa, wuxuu ku dhihi doonaa sawir iska qaad, balse waxaa jeclaan lahayd inaad gallery-da sawirka ka doorato. Halkan ayaad ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay choose a photo. Marka halka ku dhufato kabacdi wuxuu ku geyn doonaa, wuxuu gudaha kuu keeni doonaa telephone-kaada waxa kugu jiro sawiraan noocay ahaadaanba. Hadda sawirka aad doonto ayaad ka dooranaysaa. Anaga sawirkan ayaan rabnaa inaan saarno. Kabacdi waxaad dhahaysaa halkan ayaad ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay accept ayaad ku dhufanaysaa. Sida aad hadda u wada joogto, sida aan hadda u wada joogno processing ayuu wadaa. Wuxuu dhahayaa setting profile photo ayuu dhahayaa, wuuna wareeganayaa. Wax yar kadib saacad yar kadib wuu saarmayaa. Saacad kadib wuu saarmayaa. Hadda sida aad u wada joogdaan haddii aan gadaal ugu soo laabanno ama aan back gadaal ka soo dhahno aan baar wada yara sugno. Sida halkan in kaga muuqato wuu kuu saarmay sawirka. Qof kale xitaa hadduu arko sidan ayuu kugu saaran yahay, ama xitaa haddii qof kale uu email inuu kugu soo diro rabo aad u dirsato email-kaaga sidan ayuu kugu saarnaanayaa halkan. Wuuna garanayaa qofka sawirkaaga iyo waxa uu yahay iyo qofka aad tahay dhammaan. Fadlan haddii uu muuqaalku cajabiyay subscribe ii saar, gambaleelkana furo si ay kusoo gaaraan muuqaalada dhiiliga ee halkan kusoo gudbino. Fadlan waxaan kaa codsan lahaa inaad ii taageerto si aan u gaaro 1k subscribers bilahana soo aadan. Haddii aad tahay qof jecel waxyaabaha tiknoolajiyadda ah ama waxyaabaha ku saabsan halkan ayaad ka heli kartaa. Fadlan subscribe saaro, gambaleelkana furo si ay kusoo gaaraan muuqaalada dhiiliga halkan kusoo gudbino. Ciao saaxiibayaal, waa inoo iyo muuqaalka dambe.